waxaa si toos ah khadka ugu jira garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ku sugan deegaanka Godaalo waxaana uu ka tacsiyeenayaa Allah u naxariistay garaad Cabdilaahi Garaad Soofe oo maanta gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Saaid. Garaad ku soo dhawow ugu horeyn warbaahinta. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Marka ugu horeysa waxaan taasi tiiraan loo dirayaa Allah u naxariistay garaad Cabdilaahi Garaad Soofe eheladii qaraabadii iyo dadka reer Khaatuma meel kasta joogaan kooxaha sare dhaqanka beesha dhulbaante iyo beeshii ka geeriyooday eheladii ayaan si gaar ah u tacsiyeenayaa taasidaas oo naga wada dhintay من أهل الجنة وها إلى خير بدن وها دوان مركو هذا النبي وها إلهي وحن لا هي إلهي وحن قبل كندي فتوسين وكورابيو ومدة فرح بدن يدك وكجري وذا سمري ما كسيه إلهي أنا وعن الخير خير قوي بدله كذا صار إلهي كبر يا وقت في عن أيود انتي من ومدة دنوا وخاتك عيسين ومارك من خير قوها وها إلهي خير الله ندوني ومدة يسوى كريم أحانات وإسكال الجنة لأن هاي إنا لله وإنا إليه راجعون بأيان مرة والله هاي ذكر وما سنتين. garaad maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda Ilaahay u naxariistay garaad Cabdilaahi Garaad Soofe? Cabdilaahi Garaad Soofe وإن بدأنا وسقينا إلى أنت أنو كل دويجة دعوينا بقتنانا ويجوا الرئي أنو لا قوي توصل نضاد meelaha sina ayaan wada shaqeynaa hadda anagoo dhaqaalaha sare dhaqanka Khaatuma oo dhulbaanta ka wada tirsan intii ka horeysay nimiga weyn oo taariikhdiisa aan gaaray buu ahaa laakiin inta aan anu ka garanayo wuxuu ahaa nin maaragtay ajaayib ah oo xagga diinta ku dheer waxaan mar dhow ka sheekeynayay anagoo xamar joognaa bisha soontii saddexaad oo markii la sameeyay la dhisay dawladda maaragtay hadda federaalka in aanu habeenkii ka buga jirnay annagu maartay taraawiixda iyo masaajidada iyadoo la hanjabayo inuu isagu iska soo tukan jiray isaga waa kaasa marka taariikhdiisa waa nin taariikh ajaa'ib ah xagga diinta ku leh waa nin wax bartay buu ahaa oo runtii aad iyo aad u bartay dhaqanka iyo tii wuxuu isku haystay maartay culimanimada ayuu ahaa waxaan leeyahay kulli waa la tagi doonaa meel weyn buu baneeyo aan leeyahay aad baa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo dhambaal tacsiye ka direeyay Allah u naxariistay geeridii naxdinta lahayd ee ku timi garaad Cabdilaahi Garaad Soofe oo ku geeriyooday magaalada Buuhood aad baa u mahadsan tahay garaad oo salaamaya haddaba waxaa tacsi taas la mid ah ka diraya geeridii naxdinta lahayd ee ku timi garaad Cabdilaahi Garaad Soofe oo ka mid ahaa ismada dhaqanka ee Khaatuma State garaad Maxamuud Cismaan Mashqare oo ku sugan deegaanka Carooli ee gobolka Sool waxaa warbaahinta Khaatuma soo gaarsiiyay dhambaalkaasi tacsida ah Shaafici Awjaama Xirsi oo ah afayeenka odayaasha deegaanka Carooli ahna wakiilka garaad Maxamuud Cismaan Mashqare anagu odayaasha deegaanka Carooli oo nadan yahay garaad Maxamuud Cismaan Mashqare waxaan tacsi tiiraanyada u direynaa garaad Cabdilaahi Garaad Soofe oo maanta ku baxay magaalada Buuhoodle dhammaan dadka Soomaaliyeed ka dhintay khaasatan dadka reer Khaatuma waan uga tacsiyeenaynaa samiriyeena balanaga ka fiican khayr badan la ugu bedelo garaadkaas oo ahaa garaad caan ka ah dalka Soomaaliya khaasatan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee dadka reer Khaatuma garaadkaas oo ahaa garaadada xalaasha ah oo aan ku milmay siyaasadda garaad Cabdilaahi Garaad Soofe wuxuu ahaa wadaad caalim ah wuxuu ahaa nin sheekh ah garaadkaas aan aad u tacsiyeenaynaa iyo garaadada ka geeriyooday waxaan u qadinaynaa samiriyeena sida ay lahayn xalalkiisa maafi